axmed yuusuf yaasiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somalilan oo waraysi gaara siinaya saab t v ayaa waxau ugu baaqay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi in ay gebi ahaanba joojiso wadahadalada somalilan iyo soomaaliya ilaa iyo dowlad rasmigii ka dhalato soomaaliya. waa sida hadalka uu dhigaya. haddaan dub noqdo annagu maamulkayagii hore waan isku xidhnay arrinkan. waxaan ku xidhnay laba shardi. kow, soomaaliya horta marka hore inay ictiraafto ay tiraahdo waxaanu ahayn laba dowladood isu yimi 60kii oo wax wada yeeshay. laba, inay yeeshaan elected president iyo elected parliament, madaxweyne ay shacabku doorteen iyo baarlamaan shacabku doortay. marka intaa la helo ayaan baan wada hadlaynaa. taasaka sanad barigi ku xidhnay xukuumadii naga dambeeyeen Siiraye iyo Muusaba oo ka soo baxay kulmiye iyagoo hadalay bilaabeen. hadalina oo taamaantay la maraysa farito goleer kula xushay. waxaan soo jeedinayaa war arrinkan ninkuu haysta ama kulle anaa kulle wakaafi kala dheeri. waxaan xasuustaa kaabinetkii Siyaad Barre oo la fadhiyo ayuu yidhi sawirka barbaxalay sawirkii baa laga barbaxa sameeyay warsa sawiro sawirkii baa buuraha barbar laga helay. wuxuu yidhi gawaadhaha lagu soo raro oo halkan laga sameeyo warshada oo waxa ka dhacay weey halkan laga sameeyo warshada. nin baa yidhi warshada mareedhay ee sokorta barbar laga sameeyo oo ninkaas wuxuu aanay Somaliland qasabkeedana xagga la geeyo. macquul ma hawiyo tala macquul hawiyo halka imka marayso waa la arkaya. halka marayso waa la arkaya. ninaan kuba aqoonsanayn inaad tahay dawlad jirtay oo u timi oo Soomaaliyeed doonaysay oo shaqada Soomaaliyeed daba caraaraysay waqtigaas oo xaydinayd haddaan kuba aqoonsanayn oo meesha ay maanta ay qabsadeen oo yar qabsadeen anu wax qabaha halka lagu xiro. dalkeena aan dhisano ciidankeena aan dhisano aan diyaar garowno. haddii kale hawkar xaq Iran inuu hayn laba dawladood xigis u yimi ka masoo halku bilaabmi karaa hadalku bilaabmi karaa. iminka tan ay xitaa sameeyeen kulmiye dawladdan kulmiye sameysay wanaag bahayd laakiin wanaagii may garan. markay leeyihiin yaan wax maalgelin aan la samaynin aan lagu samaynin Somaliland. وأنا كل شيء يحوي سبب كيف ببرة حلقة أو كونفر شو استدى حلقة سمي. dhanka kale axmed yuusuf yaasiin madaxweyne ku-xigeenkii hore ee somalilan ayaa waxa uu u soo jeediyey xukuumadda muuse biixi in heshiiska saddex geesoodka ah ee somalilan DP World iyo Itoobiya ee ku saabsanaa maalgelinta dekedda magaalada berbera si dhaqso ah loo horgeeyo golaha wakiilada si madmadowga uga baxo ayuu yidhi amase mar dambe aanu isbeddel ugu dhicin. axmed yuusuf yaasiin madaxweyne ku-xigeenkii hore arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxauu yidhi horta haddaan dib u noqdo waxaan ahaan jiray raggii naqdi jiray heshiiskan DP World. wax kale kuma naqdi jirin maalgasha waa la goliyay laakiin waxaan diidanaa laba qodob baan diidanaa. labada qodob waa muddada dheer oo 30 sanadood iyo 10 daba yaala iyo inaan dekada kale la samayn karin Somaliland. wadan ku dhaganaa weeye laakiin maanta wixii qolwala isku fuuqsaday maadaama Somaliland maanta laga soo horjeestay oo la isku kaashaday nin wala muwaadiniina waa Somaliland buu script taagaya maanta waa tabiye ka dhibcaanka wixii inaga inoo hooseeyay naqdinna gudaheena waa fiican tahay wax weeye wuxuu la saxo weeye horta waa mid taala barnaamijka Somaliland. markii hore waxaa looga qaatay baarlamaanka oo xawaasixiyeen inay heshiiska galaan. waxaanan qabaa markii heshiisku dhameystirmo in lagu soo celiyo laba gole lagu soo celinayo waana arrin biyo ka dhibcaana waana su'aal iman kara. waxa uu sheegay bilaha MAU-gaas wuxuu sheegay in DP ay shari iibin karto. hore hadalka waan ku horeysay waxaan ku yiri anigu markii hore waxaan ka qabay su'aalo ayaan ka qabay. marka kulli waa in lagu soo celiyo baarlamaanka Somaliland oo saddex gursood kala dib loo ansixiyo. heshiiskii rasmiga baarlamaanka ansixiyana waa mid muhiim ah. mana qabo Somaliland in wax dama ka go'aan oo DP wax iibinayso dayado taala
laakiin shayska Somaliland yaanu qabaano taasuna waa marka barnaamijka lagu soo celiyo waa arrimaha laga hadli doono halka shantaas la raaciyay iyo sababta loo raaciyay waa arrintaas inoo dambeeya. Cabdirashiid Cali Barre, SABC TV, Hargeysa.